Filimku waxa uu ku furmay warshad ay ku mudaharaadayaan boqolaal shaqaale ah oo ka cabanaya maamulka si ay u helaan mushaar wanaagsan iyo takoor yar oo ay ku jiraan. Waxa uu yeeraya madaxa warshadda qaar ka mid ah wakiilada ururka shaqaalaha si ay ula xaajoodaan waaxda dhageysiga arrintan. Mudaharaadkii ayaa ugu dambeyntii joogsaday waxaana gudaha u galay dhismaha waaxda laba wakiil. Dhanka kale waxaasoo dhan waxaa isha ku haya wiil yar oo lagu magacaabo Sanshaka oo fadhiya saqafka sare ee dhismo ku dhow. Sanshaka oo sugaya aabihiis Rudra oo aan ogaanayno inuu ka mid yahay ciidamadii ka dambeeyay mudaharaadka. Sanshaka ayaa weydiiyey sababta uu doonayay inuu ku lug yeesho rabshadaas. Rudra ayaa u sheegay inay tahay in mar walba la caawiyo dadka kale oo dhibaataysan oo lala dagaalamo cadaalad darrada. Isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu xusay in kuwa aan cid kale wax u tarayn aanay gudaha la ku lahayn bini'aadanimo. 3 maalmood ayaa kasoo wareegaysa balse shaqaalihii u tagay inay la xaajoodaan waaxda dib uma soo noqon. Subax ayaa Sanshaka kusoo toosay sheekadii dhex martay waalidkii oo ka sheekeynaya shaqaalaha maqan. Sanshaka hooyadiisa Della ayaa isku dayday inay ninkeeda ka joojiso inuu tago warshadda, hase yeeshee way ku fashilantay. Rudra ayaa soo gaaray warshaddii oo weerar ku qaaday ciidamada ammaanka oo kaashanaya shaqaale kale. Dhanka kale, Sanshaka iyo hooyadii ayaa go'aan ku gaaray inay hubiso guriga shaqaalaha si ay u ogaadaan xaqiiqda dhabta ah. Markii ay gaareen mid ka mid ah wakiilada, waxay ka heleen gudaha isaga iyo xaaskiisa oo isku dayay inay ka been sheegaan joogitaankiisa iyadoo garwaaqsatay inay tani tahay dabin lagu dilayo ninkeeda. Della ayaa bilowday inay u cararto dhanka warshadda iyadoo murugay. Sidii ay u ordayso ayaa dhacaysa oo lugteedii ayaa iskalaysa waxayna awoodi weynaysaa inay socdo. Waxay ka codsatay Sanshaka inuu aado warshadda oo uu joojiyay aabihiisa. Rudra oo la dagaalamaya ciidamada nabad sugidda ayaa mid ka mid ah shaqaalaha kooxiisa ayaa u soo dhawaaday kadibna toorey ku dilay. Nasiib darro markii uu Sanshaka soo gaaray warshaddii waxa uu arkay aabihiisii oo meyd ah oo dhulka yaalla. Wiilkii oo ilmeeyay oo ka baroordiiqay geerida aabihii muddo kadib isagoo aad u caraysan oo maleegay aargoosi wuxuu sitay gaashaanka ammaanka ah aad ayuu u qeyliyay. Isla markii uu sidaas sameeyey ayaa hilaha dhalaalaya kor dhacay oo tuuray isagoo jabiyeyna gaashaanka oo xoog badan. La yaab dhammaan gaashaamadii kale ee halkaas ku sugan ayaguna si isku mid ah ayay u jabeen. Qof kasta wuu naxay markii uu arkay arrintan oo markii ay damceen inay baaraan Sanshaka jirkiisa oo miyir dabool ayaa waxaa tuuraysa biriiqda. Dhowr sano ka hor Sanshaka hooyadii waxay u sheegtay inay u baahan tahay inay tagto magaalada si ay cunto ugu soo iibso. Wiilka yari ma rabo in laga tago balse ma haysto wax kale oo aan ka ahayn inuu ogolaado. Maalmo ayaa laga joogaa bixitaankii hooyadii balse hooyadii weli ma iman guriga. Xaaga darane wax kasta oo la cuni karayay ee cunto ahaa way dhammaadeen. Sanshaka ayaa ku qasban inuu banaanka u soo baxo si uu cunto u raadsado. Muuqaalka xiga Sanshaka ayaa arkayna iyadoo ay eryeen qaar ka mid ah wiilasha darbijiifka ah. Kadib dagaal xoogan ugu dambeyntii waa ay qabteen waxayna u garaaceen si xun. Markii ay damceen inay qori weyn ku dhuftaan ayaa waxaa yimid wiil kale oo la yiraahdo Agan oo ka badbaadiyay oo la dagaalamay wiilasha darbijiifka. Markii uu Sanshaka soo kacay wuxuu is arkay isagoo hurda qol isagoo uu ag fadhiyo Agan una sheegay inuu iska taxadaro oo isku ilaaliyo carruurta darbijiifka ah. Waxa uu u ballan qaaday inuu bari doono talaabooyinka aasaasiga u ah istifaacista. Habeenkii labadoodu waxay go'aansadeen inay tareen u raacaan magaalo si ay nolol cusub u bilaabaan iyagoo isticmaalaya xawaarahooda. Agan ayaa si fudud u fuulay tareenka laakiin Sanshaka ayaa gaabiyay oo gaari waayay tareenkii. Sanshaka ayaa laga tegay hadda iyadoo aysan jirin cid daryeesha. Sanshaka ayaa bilaabay inuu ku noolaado waddooyinka isaga oo shaqooyin hoose ka qabta waddooyinka. Muuqaalka xiga waxaan aragnaa Sanshaka oo weyn oo ku ordaya waddooyinka oo hadda bilaabay inuu u shaqeeyo warshadda joornaalada isagoo ah waardiye. Wuxuu iska dhigtiraa dadka ku dagaalamaya waddooyinka wuxuuna iska sii wataa noloshiisa caadiga ah. Wuxuu aad uga baqaa danabka mar walba uu danab dhacana waa mid meel isku ururaya. Qof lagu magacaabo Benkor ayaa sida muuqata la kulmay dhibaatooyin badan intii uu yaraa. Wuxuu ka sheekeynayaa qoyskiisii Benkor oo nolosha lagu gubay iyo sidii uu uga badbaaday isagoo ku dhex dhuuntay armaajo. Kadibna adeerkii ayaa geeyay xarunta agoonta. Carruurtu waa lagu dhibaateeyaa meesha. Benkor wuxuu shirqool u dhigaa agoonta wuxuuna laayaa dhammaan dadkii iska lahaa xarunta agoonta. Muddo kadib wuxuu helay dhaxalka aabihiis wuxuu dib u eegay agoonta oo dib loogu celinayay qalinka hadda jira. Waa hogaamiye dambiilayaal ah. Waxa uu gacanta ku hayaa qaybo badan oo ka mid ah sharci dejinta musuqmaasuqa ee Indonesia. Sidoo kale wuxuu mas'uul ka yahay ciidan agoon ah oo loo tababaray. Digaagga waxa uu dejiyay qorshe uu ku wasakheeyo bariiska walaxda yeelada uurjiifka haweenka uurka leh. Sideenta sharciga ee dawooyinka aan la hubin ee uu sameeyay. Kadib markii meherad dawooyin ah oo aan la aqoonsanin ayaa waxaa dalbaday dad aad u tiro badan. Khilaafkan ayaa baarlamaanka u kala qaybiyay 2 garab oo mid ay u badan tahay qalin jabin iyo saaxiibadii oo ka soo horjeeda. Halka kuwa kalena uu hormuud u yahay Xildhibaan Ridwan Bari iyo saaxiibkii dhulka oo soo diyaariyay hindise sharciyaadka si ay u qaybiyaan. Inta lagu guda jiray xafladda Benkor ayaa durka gacan u soo taagay laakiin kan dambe ayaa diiday inuu ka qaado. Marka durka uu ku soo laabanayo gurigiisii raggii Benkor ayaa soo qabtay isaga iyo qoyskiisana oo si naxariis darro ah u dilay. Muuqaalka xiga Sanshaka ayaa maqlay dhawaqa qolka deriskiisa. Waxa uu arkay 2 tuug oo u hanjabiyay gabadh miskiin ah oo lacag la'aan ah. Sanshaka ayaa ka celiyay gabadhii isagoo adeegsaday xirfadiisa dagaalka ee sare. Si fudud ayuu uga guuleystay kadib markii ay tuugta ka tageen. Wulan ayaa u mahadcelisay Sanshaka oo badbaadiyay iyada iyo walaalkeed Teddy.
xilli habeenimo ah xilli uu Sashaaka ka shaqaynayay nabad sugidda warshadda ayaa waxaa soo weeraray kooxo waaweyn oo tuugo ah oo si xun u garaacay iyagoo u malaynaya inuu dhintay ayay kasoo tuureen dhismo sare ilaa ayaa kusoo dhaca Sashaaka jirkiisa ayuu soo dhex maraa oo baraarujiya danabku wuxuu daweeyaa dhammaan nabarada oo dhan wuxuuna dib u soo nooleeyaa isaga muuqaalka xiga Sashaaka ayaa imanaya suuqa wuxuu ogaaday in milkiilayaasha suuqa ay qorsheynayaan si ay isaga badbaadin lahaayeen tuugada kadib isla tuugtii Sashaaka garaacday ayaa goobta soo gaaray waxayna bilaabeen inay baacsadaan balse markan Sashaaka ayaa leh awood waana ka adkaaday arrinkan ayaa waxaa la yaabtay Wulan waxayna ka codsatay inuu dagaalkooda ku soo biiro balse Sashaaka waa uu ka diidayaa kooxaha burcadda ayaa dab qabadsiiyay suuqa oo dhan wax walbana way ay baabiyeen taasi waxay keentay inuu walwal ka muujiyo Sashaaka Wulan ayaa u sheegaysa inay tahay in la caawiyo dadka dhibaataysan ee daciifka ah markii uu maqlay eryadan Sashaaka ayaa xasuustay aabihiisii dhintay wuxuuna go'aansaday inuu u dagaalamo dadka waxa uu xirtay mask waxa uuna dagaal siyaa kooxaha shirwadayaasha ah ee ku xiran magaalada qof aan la garanayn ayaa tooriga ku dhuftay oo ka qaaday dhiig yar oo dhiiggiisa ah inkastoo uu suntaasi ka baqanay maadaama uu ogyahay in dhaawaciisa uu bogsiin doono hilaaca dhanka kale wararka ayaa baahinayaan in haweenka uurka leh intooda badan ay la ildaran yihiin cudur dilaaha kadib markii ay bilaabeen inay cunaan raashinka cusub ee loo qaybiyey waxaa kale oo la xusay in carruurtii ay dhaleen haweenkii soo rita ay xumaan u bedeli doonaan ayna noqon doonto sababta ugu weyn ee korarka xaddiga dambiyada dalka ka jira waxaasoo dhan waxaa fulinaya Bankor iyo raggiisii si ay u helaan faa'iido badan iyagoo iibinaya dawooyinka ka hortagga cudurkaas Sashaaka wuxuu bartay inuu xakameeyo awooddiisa hilaaca una diyaarsado dhar isaga u gaara kadibna wuxuu la dagaalamaa Mooryaan kooxaha ku xiran magaalada oo ka hortagay in qoysaska aan waxba galabsan lagula dhaqmo laguna handado dharka cusub Sashaaka wuxuu bilaabay inuu weerar tuugto oo uu ku jiro fiilinistaha Aadi Suleymaan oo xubin ka ah shabakadda Bankor ee ballaaran ee wakiilada agoonta ah waxa uuna qayb ka ahaa dadkii ka dambeeyay suuqii la gubay askariga Bankor Cabdicasiis oo uu heliyo saaxiibkiis ayaa meel qoday kana soo saaray sanduuq sir ah dhanka kale xildhibaan Ridwaan oo la kulmay madax kale oo ka tirsan dowladda ayaa sheegay in Bankor uu mas'uul ka yahay qaybinta bariiska sumaysan kadib waxay go'aansadeen in la iska kaashado sidii ay qalinka uga qaadan lahaayeen isla markaana ay ugu dhawaan lahaayeen geesiga Sashaaka si ay u caawiyaan kadib markii ay maqleen magaciisa oo ku jira warka Ridwaan ayaa sidoo kale ku amray saraakiisha in loo qaybiyo dawada sunta dhanka kale waxaa lagu soo bandhigayaa meedka Aadi Suleymaan oo la arkay isagoo meed ah Bankor ayaa ka carooday arrinka maadaama uu agoon ahaa isla markaana ay xanaaneynayeen hay'adiisa Bankor ayaa dalbaday in dhammaan ciidanka la isku keeno ay la dagaalamaan geesiga cusub ee dilay Suleymaan waxaar kadib agoontii ayaa bilaabay inay qalalaase ka sameeyaan guud ahaan deegaanka magaalada waxay ku bilaabeen inay dilaan mas'uuliyiinta isku khilaaftay qorshaha Bankor markii mid ka mid ah gacan ku dhiiglayaasha uu doonayay inuu dilo Ridwaan Sashaaka ayaa soo gaaray halkaasi isagoo xiran suurkii kana adkaaday Ridwaan ayaa u soo dhawaaday Sashaaka wuxuuna ka codsaday inuu gacan ka geysto badbaadinta dadka si kastaba ha ahaatee waxaa lagu heshiiyey in dadka loo qaybiyo dawo aan la tijaabin islamarkaana loo qaybiyo dadka islamarkaana waxaa soo gaadhay telefoon lagu sheegay in warshadaasi ay qaybinayso dawo aanay cidna lahayn Bankor oo maqlaya Ridwaan wuxuu hadalkiisa ku soo koobay haddii qalinka la joojin kari waayo mid baa joojin kara dawooyinka foosha xun ee dadka loo qaybinayo iyadoo la ogsoon yahay in Sashaaka uu yahay qofka kaliya ee joojin kara baabuurtaas Ridwaan ayaa wacay Sashaaka isaga oo u sharxay sida ay xaaladdu tahay markii uu Sashaaka dhigay telefoonka Bankor ayaa imanaya goobtii oo ku sugnaa gacan ku dhiiglihii agoonka ahaa ciidankii ayuu ku amray inay weeraraan isaga Eva inkasta uu daciif yahay Sashaaka ayaa la dagaalamay oo ka adkaaday midna u dilay isagoo isticmaalaya awoodiisa markii Bankor uu ku dhow yahay inuu ka dilo Sashaaka xagga dambe Ridwaan ayaa u yimid oo toogtayna waxa uuna badbaadiyay Sashaaka dadku waxay ku dhow yihiin inay helaan dawooyinka been abuurka ah ee laga yaabo inay koodaan ama xitaa dilaan Sashaaka ayaa soo qaadanaya mooto si uu joojiyo marwo qarsoodi ah Isra Asri ayaa awood u leh inay la socoto qaybinta Sashaaka oo helay munad ka mid ah dawooyinka been abuurka ah kadibna waxa uu isticmaalaa awoodiisa sare si uu u burburiyo lala kasta oo dawada ka hortagga ah waxa uuna sameeyey si lamid ah sidii uu ku sameeyey bilowgii filimka gaashaanka waxayna taasi sabab u noqotay in khatartii laga hortago dadkiina ay badbaadaan goobta ugu dambeysay Bankor aabihiisa Gasul ayaa dumiyey gidaar si uu u ogaado xabaal qadiimi ah oo qarsoon kadibna waxa uu la soo baxay sanduuqii sirta ahaa ee hore oo uu ku rusheeyay dhowr dhibcood oo ah dhiigga Sashaaka taasoo si qarsoodi ah loogaga shubtay markii hore kadib waxa uu isku daray jirka iyo madaxa indhaha ayuu kala qaaday kii Willowok dagaalyahan khatar ah isagoo ku wargeliyay imaatinka Sashaaka isagoo ugu yeeraya Gundala filimku wuxuu ku dhamaanayaa kii Willowok oo amar ku bixiyay Gasul si uu u maariyo ciidanka asaasiga si loo hubiyo dagaalka Sashaaka waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka fadlan ha naga ilaawin inaad like saarto muuqaalka subscribe na dhahdo channelka mahadsanid